أهلا وسهلا ميل كستاد joogtaan oo naga daawanaysaan xilligan qofkii habeen idin tahay qofkii maalin u tahay waxaan leenahay maalin wanaagsan waxaan la joogaa fanaanadii qaranka fanaanadii Soomaaliyeed fanaan qaranna wuu qabay Allah uu naxariisto Maxamed Axmed Kuluc Aamina Cabdilaahi Cumar afka ugu xiran Aamina Dool Aamina Dool xalay video ayay soo duubtay waxaan daawaday videogaas markay ahayd 12 habeenimo ayaa qof ii soo diray waliba waxa ii sheegtay oo ii soo dirtay mataanteedii Bishaara Cali Baanday ayaa igu tiri walaal ma daawatay videogii ay fanaanada Aamina Dool soo duubtay ma daawan waan fariisanay meel baan u daawanay ilaa aan ku imina indhihii baan ku soo jeeday Ilaahay boog yahay ha iyaduna way soo raaci lahayd laakiin hawl bay shaqeeyo xasay lahayd laakiin waxay igu tiri iga gaarsii waan u imanayaa waan qayb qaadanaya marka horta xalay toole anigu sidaan indhihii aan xalay video ku daawaday ayaan ku soo jeedaa wallahi markaan soo toosay marka aad soo wacday aad tiri Aamina waan ku soo socdaa marka ila hadaysa iyo markaad hoosta aad tiri hoostan taagana way isu dhaweyd waxa ay England maanta Ilaahay amarkii horta waxa dhacday anigoo leh aad la hadashid ayaaba message baad soo dirtay Soomaaliya message baad soo dirtay meel baan rabay inaan tago anoo de fikirkii igu jiro waaba soo dhaqaaqay horaan ka soo baxayba marka Aamina Dool qofkii daawaday anoo xalay toole horta intii karaamka madaxa badan oo dawladda federaalka kamida ayaan message-kii u diray oo gaarsiiyay waan u qaybiyay sababtoo meeshaad cugsatay marka waan u diray dad badan oo meel walba joogan u diray madax badan baan gaarsiiyay wixii Ilaahay ka keenay waa meeshooda laakiin horta sidaasaan kuugu imi Aamina Doolay de af jooga looma adeego horta waxaan ku leeyahay waan ku faraxsanahay inaan maanta halkan aan wada joogno magaalada London aan wada joogno dhakhtarkaaga xalina waad ka warbixisay dadka Soomaaliyeedna waad la hadashay bal marka hore horta caafimaadkaaga hadda saacadan uu taaganaa sidoo yahay alxamdulillah wala horta wixii Ilaahay uu keeno waan alxamdulillah dhaho caafimaadkayga marba qofka hadduu hadlayo oo aanu dhimanina uu nool yahay waa still waa life qofkaas waa alxamdulillah marka aniga waa xanuunsanaya xanuunkaygana waxaan hadda dareemayaa in maalinta ka dambaysa aan sii jilcayo oo sii xanuunsanayo 10 sano ayaa waxaan ku xiranahay mishinka dialysis-ka ee kaliyaha sifeeya mishinka marka maalinta ka dambaysa sanad markuu kugu xirnaado sanadka kaleeto sidii ma tihid waad sii jilcaysaa mishinku aad iyo aad buu dadka ula dagaalamaa bodigooda maxay ahayd noloshooda wax walba kaliyahaas iyo uu nadiifinayo booska kalida uu galayo waxyeeladiisa ka badan qofku ma taagnaan karo marka dialysis-ka laga faro uu dhacaya waa in la qabto wheelchair baa lagu soo saaraya haddaad istaagto wad wareegaysaa dhulkaad ku dhacaysaa intuu kugu xiran yahay gacantu way ku marorsamaysaa inta xubnaha way wuxuu ka saaraya kaadidiibu jirka ka saaraya mar gacan baa ku qaloocanaysa mar nabar baa caloosha laga gelinaya murqaha caloosha ku jira maxay ahayd xanuun sameynaya rag waaweyn baa cawaadaya mishinkaas qofkii ku jira unbaa dareemaya saasaa wad ugu dulqaad badanahay alxamdulillah marka waxaan ahay dadka aan aad iyo aad xanuunkooda aan isdareensiinin beerka waa layga bedelay wadaha operation waa ka soo galay oo waa tii ummadoo dhan ii kaceen Ilaahay khayr ha siiyo intii ii gurmatay iyo intii maxay ahayd ii istaagtay iyo intii wax baxsatay oo garab istaagtay Ilaahay adduunyo aakhiraba allaha maxay ahayd jazaa'igooda allaha siiyo amiin halkaan waxaan ka xusayaa horta berigii wadnaha operationka aan ka galayay waxa aad iyo aad inkastoo ummadoo dhan ii wada kaceen wax aan harsan oo huyanin oo fariisanin oo wallaahi subaxi salaadii gurigeeda markay ka baxdo habeenkii bay gurigeeda u hoyan jirtay intaas way wareegi jirtay laki xaajo wacays ko masha Allah ingiriiska
laki iyo gabdho maxay ahayd la socday oo fareenis ahaa oo walaalahay ah ayagana oo ilaa qof kaligiis waxba ma qaban kareen waxaa kaleeto oo maxay ahayd maraykanka iiga gurmaday fanaaniinta ayaan ka hadlayaa mogtahay shicibka fanaaniinta kiciyey farxiyo kaba yare ayadana walaynayna fariisan ilaa ay halkaas iigugu timid way soo dhooftay halkaas iigu timid ilaahay khayr ha siiye iyo gabadha hodan cabdiraxmaan iyo wiilka la yiraahdo dalmar yare iyo wiilka wariyaha ah oo halkaas u jooga deeq darajo wiilka ilaahay amarkiisa magaciisa waa laygu dhibaa deeq darajo waa ilooba marka intaas chief iyo joogba waa diideen haddayna intaas ii kicinna walaana operationka wadnaha inaanan galeen waayo dadka maxay ahayd waxaad u baahan tahay wax ma aragtay ummadii maxay ahayd kiciya oo waqti geliya oo ayaad u baahan tahay berigas maana hadli karin maanta hadalkaas iyo aan hadlaayo waa caafimaadka wadnahayga caafimaad baa dareemaya xagga wadnahayga alxamdulilah berigaas ma hadli karin waa la ii hadlayay kowle ma doonan karin wax lacagta xataa la ii soo diray waa la ii doonayay maanta laakiin mashiinkaas 10 sano aan ku jiray waxaan dareemayaa hadda caloosha infection ba caloosha way idibirsan tahay boorigoo dhan ilan jirkii kaadidii baa gelaysa 7 sano maanan kaadshin 7 sano masquulkaadi uma gelin alxamdulilah marka kaadidii jirka ay gasho jirkii oo dhan baa ku gubanaya mashiinkii marka uu iga meeri jiray inta hore sanadihii hore waa fiicnaa alxamdulilah waa marka layga soo meero nafis baan dareemi jiray waa nafisi jiray ilan wixiiba oo dhan ba kiilkiiba iga dhacay moogta mar allaale iyo markaan guriga imaado cuntadeedaan cuni jiray alxamdulilah waxaan ahaa hurdada waa seexan jiray hadda in muddo ah markii mashiinka laygu xiro dhiiggaygaa hoosta tegay oo low noqonaya mashiinkana marka dhiiggaaga uu low yahay qasab in lagaa furo waa kow horta way ku foorinaya lugahay kor kuugu qaadayaan madaxaagay hoos geynayaan haddii ay arkaan inaad dhiiggaaga hoos usii socdo mashiinkay kaa furayaan fileeb bay ku surayaan biyahay jirkaaga ku shubayaan markaasay mashiinka kaa furayaan deg deg haddii kaleeto qofka wuu ku dhiman karaa naqaska isku taagaya waayo balaadkii dhammaabaaba darab noqday oo hoos tegay alxamdulilah marka in muddo ah waxaan isku arkay mar allaale marka mashiinka laygu xiro saacad markuu igu xiraado dhiigga hoosta tegaya imisa saacadood buu ku xirnaadaa 4 saacadood 4 hour baan ku xirnaada iyo half an hour-ka dhiigga la joojinaya gacanta dhiigga gacanta waa intuu istaagayo waa inaad joogtaa dhakhtarka adigu inta aad soo baxayso 5 saacadood iska dheh 5 saacadood marka alxamdulilah dhiiggii markuu hoos tago mashiinkii ma qaadan karo waxaasoo dhanna maxaa keenaya mashiinka aan ku dahay mashiinkana waad ku dahday waxaana igu maqaalaa inaad markaagii horena hal keli ku dhalatay qadarta rabbi kelidayda xabad keliya aan ku dhashay xabadiina waa taa kaa xanuunsatay xabadina way daashay dhakhaatiirtu waxay yidhahdeen way daashay 9 caruur inay dhasho ma ahayn qof hal keli leh marka dhalmada ilaahay baa haya alxamdulilah ilaahay baa awlaada bixiya annagana maba naqaanaba ku adeegaya alxamdulilah waa kuwaas hadda lugaha haye oo sa aragta igu dadaalaya awlaadu waa maxay ahayd ilaah unbaa bixiya bini aadan wuxuu bixin kara maaha alxamdulilah aniga marka ilaahay baan ku xiranahay ilaa qof ilaahay aaminsan baanahay xanuunka ilaahay baa ii keenay haddana ilaahay baa iga qaadi kara waxay yidhahdaa soomaalidu rabbi iyo ragba waa leeyahay been ma aha dadna waa leeyaho dad baan ka dhashay soomaali baan ka dhashay oo dad iska jecel uuna jirin kowle shalay markay ii gurmanayeen soomaali inay isjeceshahay oo ay jeceshahay wallaahi bilaahi tallaahi xanuunka ihayay
wax badan oo badan kiil badan baa iga dhacay oo aan leeyahay wallahi dad baad leedahay aamino qalbiga iyo niyadiba ii qabowday marka la ii kacay oo dadkoo dhan ay ii gurbadeen ilaahay horta ummadeena Soomaali soo isjeceshahay rabbiga weyne waaxidka waxaan ka baryayaa Soomaali inay mid noqoto oo isku duubnaadaan anigu horta wadaniyad baana heesaha aniga aan qaado marka la kala baro xaafta ah wadani xaafna waa jacayl wadaniga weliba sii badan marka wadaniyadu waa wax wanaagsan wadanka maxay ahayd in la jeclaado ummadu inay isjeclaato maanta aniga xanuunka aan xanuunsanahay de ummadeydii oo dhan ayaan dadkaygiiba waxaan ka rabaa xanuunka inay ila qaybsadaan shalayba way ila qaybsadeen maantana inay garab istaagaan dad iyo dawladba in lay garab istaago fanaanadoodii baan ahay ayagaan wax ku ahay ayagaan maxay ahayd fanaanadoodii ahay in ay caawiyaan oo xanuunkaas iyo dhibkaas aan maraayo inay ila gurmadaan oo ay garab istaagaan oo mishinkaas sidii aan uga bixi lahaa in ay dadkayga marka in kaliya lagu iibiyaa rabtaa ha bas okay xanuun kale to aan qabo ma jiro maanta alxamdulillah wadnihi lagu geliyay saaka wadnaha operation-kii waa ku ladnaaday beerka hore la iiga bedelay oo beerkaygu aad buu u fiican yahay check up ka la geeyaa mar walba waxa la yiraahdaa waa okay fayban hay barbalan kala ma qabo hay balaag balashar dhiikar baan qabaa dhiikarkaasna wax weyn ma si aha ya xanuunada waxa weeye kala waaweyn ba ka daran exactly marka xataa kaniinka ma qaato waayo anigu waxaan ahay qof mar walba farxad iyo dadka carada badan ma ihi marka balaag balasharka xataa hay balaag balashar anoo leh tablet uma cuno ma sha Allah dhiigaygu normal mar walba normal buu taagnaadaa hayba ma tago ما شاء الله الحمد لله إلهي با انتاس إن لوغو مهد مقوي مرك الحمد لله والله ان كلي امن دولي إلهي كو عافيو آمين والله دي وجهاga qurux baa ka muuqata caafimaadna waa ka muuqda qof iimaan leh ayaa tahay wax walba iimaanka ugu weyn iimaanka waa qaali yani xanuunka Ilaahay baa keena Ilaahay baana qaada dadka laftirkoodana raxmaanka un baa wax ka soo qaada dadkana Ilaahay baa wax ka soo qaada fanaanadii waxa tahay fanaanadoodii baa tahay aad bay u mahadsanyihiin Farxiyo Kabayare iyo Laki Xaaji Wacays iyo Hodar Cabdiraxmaan iyo Deeq Darajo iyo in allaale intii caawisay ee halkan iyaguna iyaga laftirkooda haddaan garbaha lahayn oo dee aan Soomaali iyaguna aan caawin oo aan la iskaashan marka iyagana in allaale intii ka qayb qaadatay iyagana ajar iyo xasanaad qof waxa ugu liibaan fiican oo ugu fiican qofkii gacantiisa soo wax ka bixiya marka maantana shalayna waad u gurmateen maantana fanaanadina waa idin baahan tahay 10 sano ayay ku jirtaa dhakhtarkaas mashiinkii baaba iminka dee shahaatiba mashiinkii lagu xirayay ba khaati istaagay mashiinkii baa shahaati wallahi khaati istaagay wadii khaati istaagay oo dhakhaatiirtii ba khaati istaagay oo khaati bay kala taagay oo gacantii ba khaati taagan oo mashiinkii ba khaati taagan oo yadii ba khaati taagan oo saacadii ba xataa khaati taagan wallahi been marka fanaanadiina insha Allah bismillaah kareem codsigaasna meel badan uu gaaraya kii shalayna aad duubtay ee dhakhtarka soo duubtayna uu gaaraya inta hadda daawatana walaashina loo kaco wadan kasta joogtaan meel kasta joogtaan insha Allah telefonkeedna halkan ku soo qori doonaa dadka inta telefonkeeda iyo xiriirka la leena waaba la leeyihiin inta kale ee maanta aamino raadin iyo xiriirkoodana insha Allah halkan aan ku qori doonaa oo halkan aad kala socon doontaan marka bal insha Allah bismillaah kareem انت وحي داف سيسن maxaa leedahay aamin doole waxaan leeyahay waxaan kaga tageynaa dadkayga waxaan uga tagayaa dadkaliyo qofkii caawiyo Ilaahay baa caawinaayo exactly meel kale ka helaya anigana maanta caawin weydiistay dadkayga oo dhan dawladayda madaxweynahayga kulligood waxaan leeyahay hal ay soo caawiyo oo mashiinkaas hala iga soo gaaro hana laga soo gaaro mashiinkaas inta daawata ehel asxaab muslim islaameed Soomaali nabi maxamed inta daawata mashiinkaas
fanaanada aamina dhool ha laga soo gaaro insha allah bidmillaahi kariim